ciyaartooyda la hadalaya waxaa ka mid ah Southgate oo lala xiriirinayo kooxda Manchester United si uu tababaro uga noqdo Kane, Fletcher, Rabiot, Coutinho iyo wararkii ugu dambeeyay soo kaliibsiga ciyaartooyda. Manchester United ayaa ka fiirsanaysa inay tababaro ka dhigto tababaraha xulka qaranka dalka Ingiriiska ee Gareth Southgate xilli ay sii wadaan rabitaankooda ku aadan si uu noqdo bedelka Jose Mourinho. warbixin amuurtaas la xirto waxaa lagu qoray shabakada The Telegraph. Tababaraha kooxda Tottenham ayaa Real Madrid iyo Barcelona u sheegay miiska saaraan lacag dhan 310 milyan oo euro haddii ay doonayaan Harry Kane. dhasan ayaa lagu qoray. Dameero waxay leedahay kabtanka kooxda Manchester United Antonio Fletcher ayaa ka tagi doona kooxda Manchester United marka uu dhaco heshiiskiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan iyo naadiga Inter Milan ay ku sii dhawaanayso xanta lagu jiro bishan January. Jirada Mail waxay leedahay AC Milan ayaa isku diyaarinaysa inay u dhaqaaqo xidiga qadka dhexe kooxda Manchester United Marouane Fellaini kaas oo aan ku qanacsaneyn hanaanka tababaraha sida ku meel gaarka kooxda Manchester u leelinaya ee lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer. Shabakada dalka Faransiiska ee Locarno waxay leedahay Chelsea ayaa wada hadal la furtay ciyaaryahan qadka dhexe uga ciyaara kooxda PSG Adrien Rabiot kaas oo sidoo kale bartilmaame weyn u ah kooxda Barcelona ee gobolka Catalonia. Calcio Mercato waxay leedahay Juventus ayaa diiday darab isku bedelasho oo Chelsea u soo bandhigtay kuna doonaysa inay kala bedeshaan ciyaaryahanada Alvaro Morata iyo Gonzalo Higuain. Mundo Deportivo waxay leedahay xidig qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona Filipe Coutinho ayaa go'aansaday inuu iska joogo kooxda Barcelona inkastoo xiise uu ka helayo kooxda ugu guulaha badan dalka Ingiriiska ee Manchester United. Jirada Mail waxay leedahay xidig daadeerka garabka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Cowan oo Hudson-Odoi ayaa maamulka kooxiisa u sheegay in uu ogolaa inuu ku biro Bayern Munich toddobaadka soo aadan. Toto Marjato waxay leedahay Manchester City ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqday xidig qadka dhexe kooxda Napoli iyo xulka qaranka dalka Brazil ee Alan. Ugu dambeyntiina Arsenal ayaa dhameystiri doonta si xidiga qadka dhexe kooxda Barcelona Denis Suarez iyadoo ay heli doonaan heshiis amaaha oo ay si toos ah ula wareegi karaan markuu dhamaado xilli ciyaareedkan. waxaa lagu qoray shabakada caanka ee Mundo Deportivo ee ka soo baxda gobolka Catalonia. daawadayaashana galabta waxaa jiri doona kulano xiiso leh marka loo fiiriyo ciyaaraha England iyo si lamida ciyaaraha dalka Spain ee La Liga ma jiri doonaan kulamo laga ciyaari doono galabta ilaa iyo caawa tartanka Italian Serie A laakiin Coppa Italia ayaa caawa dhici doona. haddana fiirno horyaalka Premier League kulanka ugu soo horeeya 9 saac waa 12 saac qadar 15 daqiiqo wuxuu dhex yaala naadiyada Portsmouth iyo Everton iyadoo caawa kulanka uu kulana uu ku dhex mari doona garoonka Olympico waa garoonka niraada kooxda Tottenham uu ku dhex mari doona labada naadi ee Manchester United iyo naadiga Tottenham caawa 1 saac iyo bar. Coppa Italia ee soo kala caawa la ciyaar doona balayno fiirino kulanka ugu soo horeeya 12 saac galabnimo waxa uu dhex yaala labada naadi ee kala Torino iyo Silamada naadiga Fiorentina. Inter Milan waxay la ciyaar doontaa kooxda Benevento halka naadiga lagu magacaabo Napoli caawa Sassuolo ay qaabili doonto. horyaalka liigaga dalka Faransiiska kulanada ugu adag galabta ilaa caawa ayaa la ciyaar doona iyadoo kulanka weyn uu yahay kan dhex mari doona caawa saacadu marka ay tahay 5:15 dhiman Real Madrid iyo naadiga Real Betis halka caawa 2 saac qadar 30 daqiiqo kulan xiiso uu dhex mari doono